هلو السلام عليكم وحالة حرفت حالة حرفت مركز waxaan jecelnaa wax inay la wadaago booqaada wasafkaaga maanta waxaan ka hadli rabnaa social media qaybtee adag fitkaaga noqon karto fiir waxaan kuu sheegaa dhegeyso social media badanaa saddex u kala qaybsanaa kuwa la dhahaa networking sida Facebook iyo Instagram-ka aad taqaaniin oo dadkii ku wada xiriiraan iyo kuwa video hosting ah oo videoda hosting-ka ah iyo kuwa discussion-ka waxaa kamid ah Quora kamid ah website-ka aad taqaaniin dadka intii wax soo dhigaan su'aal laga doodo marka anaga haddaan nahay dadka wax baranaya oo Soomaalida ah education-ka u ceel qabo in aqoontooda kordhiyaan rabo adigan degree iyo jaamacadii waxaasna tagin ayaa waxay kugu filantahay bas 6 months ama 6 bilood oo meel xoog ka saarto bas tusaale ahaan kuwa ugu fiican waxaa kamid ah video hosting YouTube-ka kamid ah YouTube-ka markaa raacday wuxuu ku siinaya website wax ka baran kartid iyo muuqaalo iyo meelo ku jiraan iyo education tutorials sida Udemy iyo edX waxaasna wax ka baran kartaa oo meelo muhiim ku ah marka adiga haddaad computer tafiiriya haddaad tahay xafiis dowlad ku shaqaynayso computerka u baahata aqoontiisa digital way haddaad business tahay ganacsi iyo finance baad credit debit ka xisaabintooda computer u baahan tahay haddaad barato wax la yidhahdo engineering maxaa la dhahay xisaabe baalki 3D space-ka iyo 2D space hadda application ay yimid cabirada si loo subina waxaas dhan software engineer loo baahan lama joogo xilliga tradition-ka ah everything is just technology marka adiga did you prepare yourself for that technology naftaada ma u diyaarisay noloshan teknolojiyadda ah marka xeelad xirfad ku xirno dadka u baahan website-da saxda qaba emailada saxda ay aadi karaan haddaad tahay business meesha saxda ee resource-ga ka heli karto haddaad tahay engineering resource-ga ka heli kartaa ku caawinaya materialka waa ka caawinaya insha allahu tacaala xeelada xirfad annaga waxaan dadka barayna badanaa computer iyo generalka iyo networking iyo xalaas dhan laakiin dadka u baahan meelaha khaaska inay bartaan website-yada advanced-ka ah meelaha like knowledge-ka adig fitka ku ah oo ku qalanto akilis inaan kuga caawino isku daynaa marka iska ilaali social media ugu daran ugu xun waxaa kamid ah TikTok-ka alxamdulillah deegaanka aan joogno waddanka aan joogno TikTok ma laha mamnuuc ka tahay laakiin meelaha laga isticmaalo Soomaaliya kamid tahay TikTok Chinese-ka maxaa la dhahaa malaha mustaqbal fog kama fikiraan hal mar wax qabsada si ka fikiraan marka TikTok-ka videoada ku jira dadka culimada science-ka ay saadaalinayaan sanadada soo socda sida 2030 iyo 2030 meelahaas marka la gaaray 30 TikTok wuxuu noqon doonaa sida application-ada buluug ah oo la yaqaano meelaha filimada adult-ga lagu soo biyo marka dad reer TikTok ahayd filimkaad halkaas ku jiri doona iska ilaali Facebook iyo YouTube-ka Mareykanka iskala badan Mareykankana waxay ka fikiraan waxa mustaqbalka soo socda future-ka kan fikiraan hadda future-ka ka fikiraan that's why Mareykanka uu markaas adduunka hogaaminaya laakiin China wuxuu adduunka ku hogaamin karin sababta mataqaanaa wax may soo saaraan hal mar dadka ku daataan kadib lacag la xaabsanaa kadib laga tagayo wax cusub aan soo saaraan marka TikTok don't just get lost ha ku lumin waan halis oo qofka videos TikTok ku jiraan TikTok markuu noqdo goob adult ah mustaqbalka qofkaas ay ceeb ku tahay marka hadda iska joojo ku jira meelaha wax laga baran kara YouTube-ka tag just go to the website-da tag Udemy tag meelaha wax laga baran kara tag xaalad xirfadna ku xirno si markasta kugu soo gudbin wax ku anfacaya